halkani waa Bahda TV ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada aan idiinana waxaa ka mid ah shirkii uu ku dhawaaqay madaxweynaha muddaxileedkiisa oo dhamaaday oo laga cabsi qabo inuu baaqdo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta oo mar kale la kulmaya midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya dowladda federaalka Soomaaliya oo war ka soo saartay dibadbaxa Sabtida ka dhici doona magaalada caasimadda ee Muqdisho iyo mucaaradka oo diiday kala soo jeedin ay sameeyeen guddigii uu magacaabay ra'iisul wasaaraha madaxweynaha muddaxileedkiisa oo dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kulan la qaatay guddiga qabanqaabada xakamaynta COVID-19 iyo xubno ka socda ururada bulshada rayidka heshiiskii 17 Sebtembar laga gaaray hanaanka doorashooyinka oo wajahaya 3 caqabad qodobada iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan u diyaar garooba warkii oo dhameystiran isku soo noqod habboon daawadayaal kuna soo dhawaada warkii oo faahfaahsan fadlan haddii mar kasta ay ku soo gaaraan wararka Bahda TV subscribe saar oo gambaleelka furo shirkii uu ku baaqay madaxweynaha muddaxileedkiisa oo dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa laga cabsi qabaa inuu baaqdo waxaa markii saddexaad cabsi xoogan oo baqdin ah laga qabaa in madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shirkii ugu baaqay madaxda dowlad goboleedyada dalka uu baaqdo madaxda maamulada Jubbaland iyo Puntland ayaa qoraallo ay soo saareen waxa ay ku sheegeen inay ka qayb noqonayaan kulan kasta oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka oo lagu qabto meel amni ah iyadoo Puntland si gaar ah ay u dalbatay garoonka aadan cadde maanta oo khamiis ah ayaa la qorsheeyay in shirku uu ka qabsoomo magaalada Muqdisho ha yeeshee madaxda Puntland iyo Jubbaland ayaan weli soo gaarin Muqdisho halka madaxda dowlad goboleedyada Galmudug iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya ay ku sugan yihiin dalka Turkiga iyagoo muddooyinkii ugu dambeeyay ku sugnaa Muqdisho balse ay ku kala laabteen maamulada Koonfur Galbeed iyo Galmudug iyagoo intaa kadib u safray dalka Turkiga dowladda federaalka Soomaaliya weli kama jawaabin dalabkii madaxweynayaasha maamulada Jubbaland iyo Puntland ee ahaa in munaasabada lagu saxiixayo heshiiska guddiyadii ku shiray Baydhabo ay gaareen beesha caalamka ayaa madaxda dowladda iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka waxa ay ku cadaadinaysaa sidii ay ku kulmi lahaayeen isla markaana in heshiis rasmi ah laga gaari lahaa doorashooyinka Soomaaliya oo weli muran xoogan uu ka taagan yahay waxaana muranka intiisa badan u dhaxeeya madaxda dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland oo isku dhinac ah iyo madaxweynaha muddaxileedkiisa oo dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana madaxda maamulada Jubbaland iyo Puntland iyagu garab ka helayaan midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya oo iyagu qaadacsan qaabka dowladda Soomaaliya u doonayso inay maamusho doorashooyinka la filayo inay ka dhacaan gudaha waddanka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa mar kale waxa uu la kulmayaa golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta ee xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa inuu kulan la qaato xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka kaas oo la filayo inuu ka dhaco hotelka Dikeel oo ku yaala nawaaxiga garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ee Muqdisho kulanka ayaa looga hadli doonaa dhameystirka muranka ka taagan arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliya iyo sidii xal waara looga gaari lahaa caqabadaha hortaagan geedi socodka arrimaha doorashooyinka Soomaaliya labada dhinac ayaa horay ugu ballamay in maanta oo khamiis ah kulan ay isugu yimaadaan si loo sii wada hadallada u dhaxeeya ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya oo iyagu qaadacsan qaabka dowladda Soomaaliya u doonayso inay maamusho doorashada dhinaca kale xubno ka tirsan wakiilada beesha caalamka ayaa weli wada dadaalo ay ku qancinayaan maamulada Puntland iyo Jubbaland ay ka qayb galaan shir madaxeedka Muqdisho ka furmaya ee looga arinsanayo doorashooyinka dalka beesha caalamka ayaa marar badan sheegtay in xal weelada xiisadaha ka taagan siyaasadda Soomaaliya ay ku jirto dhameystirka heshiiskii ay madaxda dalku gaareen 17 Sebtembar ee sanadkii tagay 2020 ee lagu faafiyay hanaanka doorashooyinka muddaxileedka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo 4 sano ahayd ayaa ku ekeed 8 Febraayo ee bishii aynu soo dhaafnay mucaaradka ayaana waxa ay sheegeen inaysan madaxweyne u aqoonsanayn dowladduse waxa ay sheegtay in madaxweynuhu xilka hayn doono ilaa ay inta laga dooranayo maamul cusub mana jirto waqti la og yahay oo doorashada Soomaaliya ay dhici doonto muran xoogan ayaa weli waxa uu ka taagan yahay qaabka Soomaaliya ay kaga dhici lahayd doorashada beesha caalamka ayaana iyadu waxay dadaal xoogan ku bixinaysaa qaabkii loo dhameyn lahaa midowga siyaasadeed ee u dhaxeeya mucaaradka iyo dowladda Soomaaliya iyo maamulada Jubbaland iyo Puntland oo iyagu qaadacsan qaabka dowladda Soomaaliya ee wax ku wado shalay ayay ahayd markii guddiye uu magacaabay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ay ku shireen Muqdisho iyagoo shirkoodii uu ku soo dhamaaday isfaham waa haddana xukuumadda Soomaaliya ayaa midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya waxay u ogolaatay in banaanbaxooda ay ku dhigtaan daljirka Daasoon oo ah goob markii hore midowga musharaxiintu ay calaameysteen waxaana xukuumadda Soomaaliya uu hogaamiyay ra'iisul wasaare Roble iyadoo ay doonaysay in banaanbaxa lagu dhigo garoonka Engineer Yariso oo lagu ciyaaro kubadda cagta balse midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya arrintaasi ka hor yimideen heshiiskii laga gaaray 17 Sebtembar hanaanka doorashooyinka ayaa waxa uu wajahayaa 3 caqabadood oo hor leh heshiiskii 17 Sebtembar ee sanadkii tagay 2020 dhex maray dowladda federaalka Soomaaliya iyo xubnaha dowlad goboleedyada dalka
ayaa ah udub dhexaadka heshiiska doorasho loo dhan yahay oo dalka laga hirgeliyo sida ay ku celceliyeen beesha caalamka oo Soomaaliya siisa taageero, balse waxaa jira caqabado badan oo ku xeeran heshiiskaasi oo lagu gaaray magaalada caasimadda ee Muqdisho. Caqabadaha shirkaasi kusoo laalaabtay waa kuwa diiday in la hirgeliyo hannaan doorasho iyo in si hannaan hufan ah looga gudbo marxaladaha kala guurka ah ee dalka uu ku sugan yahay, in heshiis laga gaaro xaaladaha cakiran ee dalka. Waxaana dalku hadda uu marayaa heer beesha caalamka ay ku qasbanaatay sida muuqata inay farageliso howlaha la isugu keenayo dadka ku kala aragtida duwan habsami socodka marxaladahan. 5 caqabadood ayaa la aaminsan yahay inay ku xeeran yihiin hirgelinta heshiiska 17 Sebtembar lagu gaaray magaalada caasimadda ee Muqdisho. 3 ka mid ah waa kuwa soo jiitamayay, halka 2 qodob ay timid kadib markii dhammaadkii muddaxileedka xukuumadda iyo dhaqangelinta bilihii ugu dambeeyay. Kan koowaad ayaana waxa uu yahay kuraasta maamulka Somaliland. Dowladda muddaxileedkeeda uu dhammaaday hogaamiye Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa faragelisay arrimaha kuraasta gobollada waqooyi ee Somaliland. Sihayaha madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaana lagu eedeeyay inuusan xushmeyn Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ah gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, isla markaana ah qofka ugu sarreeya ee xildhibaanada ka soo jeeda gobollada waqooyi inuu u daayo soo xulista. Waxaana ka dhashay dood aan ilaa iyo hadda laga heshiinin, iyadoo filla Soomaaliya ay arrintan u wakiilatay Mahdi Guuleed oo ah ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda xilgaarsiinta. Arrinta labaad ayaa waxa ay tahay gobolka Gedo, maadaama heshiiska doorashada ee 17 Sebtembar la gaaray ay ahayd in 2 meelood oo maamul waliba ah lagu qabto doorasho. Gedona ay ka mid noqonayso goobaha laga rabo in Jubbaland ay doorasho ku qabato. Halkaas ayaa waxaa ku soo laabtay doodo badan maadaama dowladda muddaxileedkeeda uu dhammaaday ee ciidamo ku daabushay gobolka Gedo ee uu ka arrimiyo maamulka Jubbaland. Ha yeeshee heshiisyo badan oo laga gaari lahaa arrimaha doorashooyinka ayaana waxaa burburiyey arrinta gobolka Gedo, iyadoo xusid ay mudan tahay in shirkii Dhuusamareeb waxyaabihii fashiliyay ay ugu muhiimsaneyd arrinta gobolka Gedo. Farmaajo iyo Axmed Madoobe ayaa isku haya, iyadoo guddiga farsamo ee Baydhabo ku shiray la sheegay in arrintaas isfaham ay ka gaareen, balse caqabadaha ugu weyn ay ku xeeran tahay doorashooyinka. Kan saddexaad ayaana waxa uu yahay guddiga doorasho ee magacowday xukuumadda Soomaaliya. Guddiga doorasho ee magacowday dowladda Soomaaliya ayaa lagu muransan yahay, waxaana la sheegay inay ku jiraan xubno daacad u ah taliska Farmaajo iyo taliyayaal ka tirsan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya, iyadoo sidoo kale ay ku jiraan shaqaale ka tirsan xukuumadda waqtigeedu idlaaday. Midowga musharaxiinta iyo 2 ka mid ah maamulada federaalka ayaa ka hor yimid, kuwaas oo weli saluugsan habka loo soo xulay guddigaas, waxaana shaki geliyey sida ay u qaban karaan doorasho loo siman yahay. Dhanka kale waxaa weli jira 2 qodob oo yimid 8 Febraayo ee sanadkan 2021 markii uu dhammaaday muddaxileedka madaxweynaha waqtigiisu idlaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Maadaama muddaxileedkiisu dhammaaday, madaxweynaha Soomaaliya ma gaari karayo go'aamo masiiri ah. Taasina waxa ay la macno tahay in saamiyada siyaasadeed ee dalka ay ku biiri karaan miiska wadahadalka. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa muddaxileedkiisu waxa uu dhammaaday 17 Sebtembar, sidaas darteed golaha sharci dejinta waxay sii xoojinayaan ilaa iyo kuwii bedeli lahaa ay ka yimaadaan, balse madaxweynaha xaq uma lahan inuu kursiga ku sii fadhiyo. Qodobka ugu dambeeya ayaana waxa uu yahay inay luntay kalsoonidii lagu qabay dowladda, maadaama la tuhunsan yahay in taliska jooga ay doonayaan muddo kororsi ama in xoog lagu maamulo waddanka. Waxaana jirta in ciidamo loo adeegsaday midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya qaarkood oo dibadbax ku dhigay gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho, iyadoo ciidamadu ay rasaas kala hor midowga musharaxiinta. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa war ka soo saartay dibadbaxa Sabtida ka dhici doona gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho, iyadoo mucaaradku ay diideen tala soo jeedin ay sameeyeen guddigii uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta. War ka soo baxay xukuumadda xilgaarsiinta ayaa lagu shaaciyay in dowladda iyo mucaaradku ka dalbatay banaanbaxa u qorsheysan in lagu qabto garoonka kubadda cagta ee Injineer Yarisow lagana wareejiyo fagaaraha Dirjirka Daasoon, balse midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ay ka biyo diideen. Xukuumadda ayaa waxa ay ku sheegtay qoraalkeeda in dalabkaas ay uga gol leedahay in la helo fursado lagu xaqiijin karo habraaca xakameynta COVID-19, laakiin hadda ay ogolaatay markii uu mucaaradku ku adkaystay fagaaraha Dirjirka Daasoon. Xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa ay qoraalkeeda sidoo kale ay ku sheegtay in iyada oo tixgelinaysa geedi socodka dimuqraadiyadda, qabsoomidda doorasho qaran iyo ilaalinta heshiisyadii mucaaradku ay la gaareen, iyada ogolaatay codsigaas, kaasi oo ahaa in midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ay fagaaraha Dirjirka Daasoon banaanbaxooda ay ku qabsadaan. Warkan ka soo baxay wasaaradda ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in xukuumadda mucaaradka ay u jeedisay in mudaharaadkooda ay ku qabsadaan garoonka Injineer Yarisow oo lagu ciyaaro kubadda cagta si loo xaqiijiyo habraacyada xakameynta caabuqa COVID-19 oo waajib ah. Laakiin midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxay ku adkaysteen fagaaraha Dirjirka Daasoon
xukuumadda ayaa iyadoo tixgelinaysa heshiisyadaasi la gaaray waxa ay ogolaatay in banaanbax midowga musharaxiinta ay ku qabsadaan halkaasi. ugu dambeyntii xukuumadda xilgaarsiinta ayaa waxa ay fartay qabanqaabayaasha mudaharaadka in dibadbaxayaasha ay ku adkeeyaan soo qaadashada afxirka iyo kala fogaanshaha. warka ka soo baxay xukuumadda Soomaaliya ee xilgaarsiinta ayaana waxa uu ku soo aadayaa iyadoo shir natiijo la'aan ku soo dhamaaday ay isugu yimaadeen guddiga labada dhinac ee uu soo xulay ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta. kulanka oo ah kii ugu horreeyay ee guddiga uu yeesho ayaana lagu kala tegay kadib markii garabka matalaya dowladda uu jeediyey in banaanbaxa laga bedelo taalada daljirka Daasoon halka garabka mucaaradku ay ku adkaysteen in goobtaasi banaanbax uu ka dhaco. haddaba sida ku cad qoraalkan, dowladda federaalka Soomaaliya ayaana waxay ogolaatay in mucaaradka fagaaraha daljirka Daasoon ay ku qabsadaan banaanbaxa kaas oo qorshuhu yahay inuu dhaco maalinta Sabtida ah ee taariikhdu ay ku beegan tahay 6 bisha. waad ku mahadsantihiin daawashada warka. haddii ay tahay markii kugu horreysay aad na soo booqato, subscribe noo saar oo like noo saar, asxaabtaadana u share gareey. mahadsanidin.